anigana hal mid kaliya aan ku darsanaya waxaan ku darsanaya waxa waaye qof walba oo degan degmada Hoodaag oo meel saan oo kale ugu furan tahay qof walba ha awaado qofkii meel saan ugu furan tahay anaga aan ka qabo aan qabso meesha saan oo kale aan tagno aan ku aragno waxaan oo kale gurigaas waxa la wareegay ciidanka booliska saldhigga Hoodaag farintaas qof walba waa inuu ogaadaa qof anaga ka yeelin ma jirto in dadku waxaan lagu dhibaateeyo waxaan baqtiga calaqaan iyo xashiishkan iyo in meelahaasaan lagu habeeyo oo dadkii shacabkan lagu dhibaateeyo qof aan ka dhageysanayno oo ilaaha warta ma jiro shacabka waxa waaye iyaga naftigooda waxa waaye waxa la raadiyay booliska amniga lagu sheegay kaliya boolis ma qaban karo shacab la'aan waxa waaye anaga waxba ma qaban karno shacabka waxaan leenahay mar walba waxaan ugu celceliyaa ciidanka booliska meel walba ay joogaan waxba ka qarsanina anaga walaalihiinaanay waxaan u joogno aan u dhafreyno aan u dhafaadeyno wax kale ma waa dadka shacabka oo degan degmada Hoodaag qof walba waxaan oo kale da aragtid ajira kale soo sheeg adiga anaga ka jawaabayno anaga mas'uuliyad qaadanayno waxaan oo kale qofkan ku aragna iyo shacabka u dhow oo soo sheegi waaya iyagana mas'uuliyad iga qaadan talaabo ka qaadan iyagana dhankiisa waxaa goobta ka hadlay taliye ku-xigeenka qaybta waliyo cadde Gaanshaal Isxaaq Maxamed Ciise isagoona ka hadlay howlgalkan iyo sida ay ugu suur gashay laamaha amniga dawladda Soomaaliya sida u jeedaan waxaan qabanay caaway muxuu ahaa xarun weyn oo lagu farsameeyo maandooriyaha oo sida u jeedaan digsidii iyo dabkii iyo calaqii iyo khamridii iyo xashiishkii iyo geedihii muxuu ahaa lagu beerahay meeshaan inaan ku qabanay howlgalkan looga gol leeyahay in lagu cirib tiro maandooriyaha magaaladan caasimadda ah ragaadiyey howlgalkii aan caaw wadnay waxaan muxuu ahaa ku soo qabanay sida u jeedaan maandooriyahan oo muxuu ahaa warshad weyn aan dhigi karno xaafadahan xaafad ka mid ah marka muxuu ahaa waxaan rabnaa inaan baaq u dirno xaafadaha gobolka Banaadir ee lagu farsameeyo muxuu ahaa calaqa iyo maandooriyaha inay muxuu ahaa soo sheegaan meelaha muxuu ahaa beesku ah xaafadii aan soo sheegin ayadaa muxuu ahaa sharciga ayaan la tigis doonaa sida u jeedaan muxuu ahaa waa warshado waaweyn waxay ku hayaan xaafadaha dhibaato xaafadan hadda aan joogno geesaha dad shacab ayaa ka degan dabka markaan soo galnay digsiga soo dabka saaran ayaa nimid ninkii farsameynayay ee meeshan waxaan ku farsameynayay dhabarka dambe ayuu ka booday halis waxay ugu jirtay meeshan inuu dab ka kaco oo dadkan iyo xaafadan iyo dadka masaakiinta oo jiifa ay ku dhibaatoobaan marka waxaan kaloo meeshan baaq uga dirayaa gudoomiyaasha degmooyinka aan muxuu ahaa ka howlgelin muxuu ahaa meelaha degmooyinka muxuu ahaa madaxda ka yihiin inay arrintan ayakuna u istaagaan